soddon iyo toddoba kiis ayay socialka iga gudbiyeen oo ay leeyihiin midba midda kale ka xanuunka badan ay leeyihiin waalidiintan ilmaha ayay dileen oo ay jarjareen. waa hooyo 3 sanadood ee ugu dambeysay murugo iyo niyad jab la noolayd 8 caruur oo kan ugu dambeeya markii uu dhashay laga qaatay ayaa ka maqan. waxa ay qayb ka ahayd mudaharaadayaashii maalintii dhaweyd ku soo bandhigay dareenkooda wadanka Sweden si aan caruurta looga qaadan inta iminka gacanta ku haysa. Faadumo Ciise Maxamuud oo ku magac dheer Faadumo Baraambur ayaa halkudhageedu yahay murugtii ay iyadu martay in aan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Sweden aanay la marin. waxana ay rajaynaysaa in ay 8 caruur u soo noqdaan iyaga oo nabad qaba. Faadumo oo aan khadka telefoonka kula xiriiray iyada oo ku sugan magaalada Stockholm ee caasimadda wadanka Sweden ayaa waxaan ugu horeyntiiba weydiiyay cidda soo qaban qaabisay mudaharaadkaas maalinta dhaweyd ka dhacay wadanka Sweden ee looga soo horjeeday caruurta ay qaadanayaan socialka wadanka Sweden. mudaharaadkan waxa loo aasaasay oo asagu uu lugihiisa oo uu ku taagan yahay uu yahay waalidiinta caruurta laga qaatay ayuu sidiisaba ku salaysan yahay. waxa jirta in adiga caruur laga qaatay muddo 3 sanadood ka hor hadii aan khaldanayn oo aad maxkamado fara badan soo martay oo wadanka Sweden ah. waantii ugu dambeysay ee aad ka heshay xafiisyada wadanka Sweden maxay ahayd? horta Sweden dhan isma ogo, dawladana isma ogo. hal kamuun ayaa wali igu dhagan ee aan ka gar heli laahay igana gar heli la waxayna 3 sano ii dhamaanaysaa insha Allah bisha 9aad ayay ku eg tahay. laba maxkamad ayaan maray. maxkamadii ugu dambeysay oo dambi baarista aniga ayaa ku guuleystay oo wax dambiya waa la igu soo waayay. 37 kiis ayay socialka iga gudbiyeen oo ay leeyihiin midba midda kale ka xanuunka badan ay leeyihiin waalidiintan ilmaha ayay dileen oo ay jarjareen. waa tahay Faadumo, hadii aad in yar ka daba geyso sida caruurtaada lagaga qaatay iyo tiradoodu inta ay ahayd dadka ina daawanaya ee aan arintaasi xogogaalka ka ahayn. horta Soomaali ugu badnaa way ila socotaa oo YouTube-kayga fiirsadaan. hase ahaato caruurtii markii hore laga qaatay 7 cunug ayay ahaayeen. deedna mid kale oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu risaaqay oo markaas caloosha ku jiray ayaa dib isbitaalka aniga oo dhalay 45 daqiiqo ay ila soo kor istaageen warqadii socialka ilmaha ku qaadanayeen. guud ahaan markii la isku daro waa 8 caruur ah. waa tahay dadka aaminsan in ay Soomaalidu ka dambayso sababta ay caruurta ku qaataan socialka wadamada Scandinavian-ka iyo Sweden-ba maxaad ugu jawaabi lahayd? horta waxaan ugu jawaabayaa maqaldamo waa Ilaahay. waa run fikradaas way qabi karaan oo aniga ayaa Ilaahay ba idaalacanayo yarko oo aanu noqonaya aniga ayaa nadartu iri ilmo xaalada ay ku jiraan inay Yurub joogin ayna u qalmin. waa sax qalad waa dhacaa qaladna waa galan socialka marka ma dhahayo waxba Soomaalida ma suubin laakiin qaarkood waalidiin qalad lagu hayaa jiro iyo qaarkood waalidiin la xaqirayo oo aan ka koow ah. waayahay Faadumo, iminka mudaharaad baad samayseen adiguna waxaad ku jirtaa halganka sidii aad u soo ceshan lahayd caruurtaadii. maxay noqon doontaa tallaabada tan idin xigaysa? wuu soconayaa codsiga aan u dirsanayna dawladda Sweden gaar ahaan aniga Faadumo mar walba social media inta aan maamushto dhan oo aan faraha kula jiro waa ka hadlaa. waxaan u baahanahay xukun sugo ayaan ahaa xukunkayga ayaa ii soo dhamaaday. waxaan u baahanahay sharciga saxda oo Sweden looga taliyo oo uu yahay cunuga markuu 12 sano dhaafo in la siin karo xuriyadiisa. marka ilmaha ii baahan ee ooyaya ee caruurtayda ah ee 16 jirka ah ee 15 jirka ah ee social media taagan ee dhibaataysan ee xoog la iiga haysto in la ii soo celiyo. 5 kale oo ka yar oo aan indhahayga saarin muddo 3 sano ku dhowna waxaan codsan lahaa in la ituso inay nool yihiin inay dhinteen. waayahay hadii aynu halka dib ugu noqono waxa jiray inan yar oo aad adigu dhashay oo social media ha soo fariistay waqtigii ay arintaasi dhacday dareenkaagu sidee ayuu noqday? wiilka bismaan gabadhayda curada iyo wiilkayga waaye. caruurta waa la siray xaalado badan oo dhibaatooyin ah oo gacan qaad ku jirta loola dhaqmay afkiisu ka sheeganaya. waxay la noqotay filawaa in la mashquuliyo oo la yiraahdo
marda haddaan ila celina haddaa la geynaa kabacdina la yidhaahdo haddaad hadasho xaaladaha uu afkiisa ka sheegtay ayaa lasoo gudboonaaday marka uun kolley xaalad waxaan la noolahay aan qurux badnayn laakiin ilaahay rabbiga raxmaanka ayaan ka warsugayaa ugu dambeyntii Faadumo muddada 3 sanadood ah ee ay ka maqnaayeen caruurtaadu marna ma is aragteen oo ma la kulantay waxaanan arkin oo indhahayga aanan saarin oo aanan maqlin maqalkoodii muuqooda aanan arkin 5 caruur oo caruurtayda kamida gabadha yarto isbitaalka la iiga qaatay waxaa la iigu dhiibay walaashay alxamdulillah labada kalena sida aad u aragteen ayagoo social media ka dhex ooynaayo oo soo fakanayo ayaan la kulmay aanan arkay alxamdulillah ilaa haddana maxkamadahooda socdo insha Allah ilaahay aan ka warsugaynaa daawadayaal taasina waxa ay ahayd Faadumo Ciise Maxamuud oo ku magac dheer Faadumo Baraanbur oo si toos ah khadka telefoonka igaga warramaysay magaalada Stockholm ee waddanka Sweden waxaana aad ka daawanayseen telefishinka Bulsho TV